دجال كم بدر وحسبب وهابا الله يدهدا غزوة عشيرة أبو سفيان يا حوله ودال الرادعيني مركا شام بكسي سعد وبحث ضي مركا هرا شام بو صو نقط كي وشام كسو نقونيي أي مسلمين توحي كنت لقى لأنني قافلة دا ما أنت قبطان وأنا بحسنين وصو نقط كي أبو سفيان مركا وحوتي أور تربضا وحول بضا وضط لكن لا يدهدا عيدا يربى لسعودي سدا أفرتنية مالها سبي كتل مامان علماء السيرة وحان صدنا أفرتنية كتبضنين ولبا علماء السيرة وحي شيغان يعني حوله وتي تردوداي قارسي sheegaan waxay yiraahdaan xoolo lagu qiyaaso 50,000 oo diinaar bay yiraahdaan halka diinaar waa 4.25 gram oo dahab ah 4 gram iyo rubuc ayuu u dhigmaa halka diinaar 50,000 oo diinaar hadaa tiraahdo waa xoolo ilaa 212 kiilo oo dahab xoolo lagu qiyaasay weeyaan 212 kiilo waa laba jawaan iyo dheeraad waa xoolo aad u tiro badan intaas oo kiilo dahab ayay gaadhayeen baa la yiraahdaa ilaa 1,000 awr bay ku sheegaan xoolaha inta leegsiday waxa la yiraahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dirtay sahamo u soo sahaminayay quraysh xoolaheedaasi xadiis saxiix waxa ku soo arortay in la yiraahdo basbas ibn amr inuu ahaa sahamada la dirayay laakiin ma kuwii hore ahaa mise kuwa dambu ahaa Allahu a'lam ala kulli xaal sahankii iyo wararkii Madiina yimaadeen sheegaya inuu ninkii Abu Sufyaan loo oran jiray oo xoolihii oo dhan wada uu soo dhadhow soo socdo markii warkaasi uu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu amray ciidanka wixii diyaar inay soo baxaan waayo ciidankan looguma talagelin inuu dagaal gali doono waxa loogu talagalay 40 kaanin ama 30 kaanin awrtaasi safarka wadata iyo xoolaha wadaan in la soo qabto sida daraadeed lama sugin saxaabadii مثلا cawaaliga deganayd qabaa'il awsi khasraj bidahan inay dhanka deganayd ba guryahooda u badnaayeen saa daraadeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii soo dhaqaaqi karayay ayuun buu yiri soo dhaqaaqa wixii dhadhawaaya marka meelahan joogay uun ba soo baxay baa la yiraahdaa ciidankan soo baxay waxa la yiraahdaa ciidan tiradiisu aanay badnayn baa عكرمة وحشيجية نبغى عليه الصلاة والسلام لبنن وعدي بن الزغباء نكلا بس بن عمر نكلا لبضا إنه طلعاه إنه بدر الصدري ويرقى في لذا يعني بالورك وذا يسور رادية وإلا صار نقدين وركا كان لكن حديث ثابت وصحيح مسلم كي يلبا وحشيجية بس نكلا هذا إنه ها دليلكي أما جاسوسكي نبغى عليه الصلاة والسلام وكانوا شيجية سكستبها النقطة ور الله بابا يمي وشيغيا عيدن كاسينو سو دوي نبي عليه الصلاة والسلام وحمر كاسيس لا صوبها عيدن غاديا 300 iyo 19 meelahaas sa imaam nawawi sharxiisa ku sheegay sahih muslim ka saasa ku qoran baa rajaynaya riwaayada bukhari-na waxay sheegaysaa bid'a 10 wa 300 312 ah 312 kaas boqol kamid muhaajiriin bay ahaayeen inta kalena وسيدا وشاقي انت كلنا انصار بهاين وسيدا رواية الزبير بن العوام اي شيغيس كتبت مراجع دي الرسمي قامرك على اصحابته مقع بدري جاي هو صار وري وحي غارسيان الا وبدنان 300 يا فرتنيو اي غارسيان 300 يا فرتك وحي غارسيان رقبه لسكو خلافسين هبل بدري بو هي بدري ما هين لكن waxay u badantu 300 iyo dhowr iyo 10 kaasi oo inay haayeen inta marka la tacyiinaya hebel marka la isku qabtaa labadiiba ay ku qoreen laakiin 300 iyo dhowr iyo 10 nin ayay haayeen muslimiinta meesha soo dagaal tagtay waxa la yiraahdaa 70 awr ayay wateen oo isaga daadagayeen 70 awr ay wateen sida ibn isxaaq uu soo aroriyo waxa la yiraahdaa abu lubaba iyo ali ibn abi talib iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam hal mid ayay u kala degayeen hal mid ayay u kala degayeen saddex meelahaas baa awrkiiba qof marka kolba xilli baa ay noqonaysaa xilliga qofkan fuulayay adhow ka daadagaya ka kala fuulaya adhow ka daadagaya ka kala fuulaya abu lubabi ali ibn abi talib marka waxay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa waan anagu waa ka maaranay adigu fuul waxay sidaan ilaahay rasuulkiisa daha fuulo idinku waxba rasuulka ilaahay la qaybsanina awre nabigu calayhi salaatu wasalaam awrka isagoo ha fuulo idinkuna lugayseen waxay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa adaan ku daynaa adigu fuul waa ka xadiidka musnad imaam ahmed ku qoran darajadiisu ugu yaraanay xasan tayadan saxiix ban noqon waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'an al-ajri minkuma wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam war labadiin horta igama xoog badnidin buu yidhi midda kalena ajarkana idinkama maarmo يعني ماشي آخرة لو ذرات يا الدنيا الراد عسميشن ما تجربوا النبي قولي عليه الصلاة والسلام هدار ربطان إن أنا نوقف وشنا هذا يدونكوا أشر كأشان أنا أشر كاسويا كان دوني يا أبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام مركا أشر كنا يدين كمان مارمو أو أنا أشر كتجي مايو يدونكوا
igama xoog badnidin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani waxay tani tilmaamaysaa mujtamaca marka ay dareemaan qaa'idka iyo askarigu inay isku si wax u qaadanayaan inaan hunguri la kala badnayn inaan cidina cid tuhmaynin waxa fududaanaysa inay daacadu badato isaqbalkiyo kala dambayntu inay badataan in ninka madaxdii uu noqdo qof la aamini karo oo maadaama uu arkayo askarigiisii inuu la naf qaybsanayo nin waliba macajanka ciidanka wata maca madaxweynuhu inuu markiisa fuulayo dadka una markooda ay fuulayaan aan qofna qof wax ka badsanaynin waxay taas keenaysaa dadku isku xidhnaantooda iyo inay dareemaan waxa kan in ilaahay dartii loo wado oo qofku markaa isna adduunyo ka dheeraado markuu arko dadkii uu madaxda ahaba ilaahay rasuulkiisii oo le awrka fuuli maayo idinku markiina fuula wuxuu dareemayaa qofkani inaan meeshan ciidan kale hijirin in janno la wada raadinayo idan isaguna awr fuulka waxba moodi maayo iyo haddii hantiyo dhammi dhaafto waxba moodi maayo walidaalika waa ilaahay rususha markuu soo diraba rasuul walba waxa koowaad la yiraahdo iska fayd waxa kamid ah tuhmada aynaanu meeshan dhaqaale ka rabin wama asalukum alayhi min ajri bir rasuul ilay rasuul kasta marka la soo diro waxa la weeruhu dadka kuleeyahay waxa kamid ah wama asalukum alayhi min ajr wax hantiya iyo awoodaan idinka xoolaan idinkuma doonayo qadiyada tan xoolo idinkuma doonayo marka ay dadka kale dadka wax wadale markuu qof dareemo inta kalena inaan dhaqaale doonin xataa isaga hadii hunguri markii hore waday isna waa ka tanaasulaya oo iskaga tagaya walidaalika bay saxaabadu waxay u ahaayeen dad aan hunguri adduun aanu haynin markay arkeen rasuulkoodii hogaaminayay mowqifka uu ka taagay calayhi salaatu wasalaam adduunyo ayay iyaguna adduunyo meel iska dhigeen dhalinyaro ma ahayn rasuulku markuu caynkan lahaa 55 jir buu ahaa markuu leeyahay igama xoog badnidin awrkana علينا وإمسجر ونيران لباتن كوب حسابين بوبضنت يعني هذو بطة وانينون إسلام كمركو سود جوا حلا مسجد شربوها ما تبان شربوها هي صدق طبعا كي سنة مكة وحلا جا بايم كيون وصدق لا باتنشر مالحاسي أما فريلات الشري يعني وحون شريلات الشركية مكة على شن يلا باتنكير أيار ربنا النبي قوشن إياه كنتن مريا إنه يرهداني ومركا يقعدوا فول مركا سون النبي يقولون لي جمر حق بدنيت أشر كنا يدين كما غني هي أنا كما مارما أشر كه إداية مركا يجانا نفولا يهاي وحلا إذا هذا علماء التاريخ سيشيء يعني ابن إسحاق بكسر ريه بدون السنة ده مقالة ده وحمد حقصي دجيبال ده عبد الله بن مكتوم إنه دتك صلاة سيتوكيو ونن ندوراها ده بيتنا مركو مريه بالله ده الروحان مال ده ده مدينة فرتن ميلو شرته أيها ده ندبو حوص صدري أبا اللبابة أو يدي مقالة دي مدح كان نقو أمير إنه مقالة ده والنقضة نكاهرنا وحلا يدي دتك صلاة توكي تارينا waxay cadeynaysaa culimadu yiraahdaan deegaanku inaanu madax marnaba ka maarmin mujtamacu yani madax la'aan inaanu noolaan karin walow safar ku jiro ama dagaal ku jiro ama nabad ku jiro ama xarb ku jiro wuxuu doonaya ku jire in loo baahan yahay mujtamacu mar kastaba inuu kala dambeyn yeesho Abu Sufyaan warba gaaray dhanka kale markaynu eegno muslimiinta iyo ciidankoodii markaynu inta ku dhaafno Abu Sufyaan warba gaaray oranaya in lagu soo baxay oo muslimiintii oo ciidan inay ku soo baxeen أبي سفيان مركا طريق خلا يوم مريبا ليلي سونا نين ليلى ضمضم بن عمرو الغفاري نو كريست وحو كريستي إنه قريش ورقية علماء التاريخ روايات بدن وان حوق بدن لهين بيسوء روريان ومسائل كان كصابسا أحي شيئا نينك كان أبو السفياني عيدا كإنه هرس عني كلبه ويسوي إيجي إنه عد ريي إنه طريقة آمين وآيه ودبتنا وصهنها dabeetana nin inuu ku soo baxay meel jooga oo labada qolob ee heshiis uu ka dhaxeeyay saxaabada iyo quraysh ba heshiiska qoladan muwaadacaadkii xilfiga lala galay kamid aha ninkii inuu ku yiri warina waxaad qoonsato meelahan ku aragtay may cidna ma arag buu ceelkaas laba nin awrtoodii intay joojisteen weel ka dhaansadeen oo ka cabeen oo ka tageen Abu Sufyaan waxay yiraahdaan in aad u maskax badan buu ahaa oo soo cararay meeshii buu yimi wuxuu eegay bay yiraahdaan awrtii meesha fadhiisatay saaladeedii ayuu burburiyay bay yiraahdaan saaladii buu laftimireed ka dhaxlay bay yiraahdaan markaas wuxuu yiri tani waa la calaa'if Madiina waa awrtii Madiina buu yiri Madiina xoolaheeda loo dhigaa laftimireedkii waxa kan awr daaqday ayuu ka dareemay inaan awrtii dadka reer baadiye ee iska daaqaysay dhirta qura inaanay ahayn buu dareemaa baa la yiraahdaa ala kulli xal waa qisaska ay wariyaan asxaabu siira si kasta ha noqotona ninka kani wuxuu helay war sheegaya inaanay jidkani aamin ahayn dabeetana jidkii uu gooyay oo wuxuu u wareegay badda xageeda bahar al-ahmarka dhinaciisa badda cas dhinaceeda wada ah ayuu u talaabay inuu Madiinaba xagga ka wada maro oo dhinacaasi ka wareego ayuu ku tashaday wuxuu kala diray ninkaasi Damdam ibn Amr la yiraahdo al-Ghifariga waxaan u diray ninkaasi Quraysh u tago waxa tidhaahdaa
xoolihiinni haddaad difaacanaysaan kaalayo difaacda ibnu cabbaas iyo curwa ibnu zubayr baana waxay sheegaan islaantii caatika bintu cabdilmutalib la odhan jiray nebiga eeddaw ahaydna waxaa la yidhaha way riyooto waxay ku riyootay quraysh oo nin istinfaar uu weydiisanayo war soo yaacay uu leeyahay oo dabeetana dhagax weyn uu kaga soo tuuray jabal abu qubays buurta dhinacan ka xigta oo dhagaxii intuu burburay magaalada maka uu galay oo guri kasta uu wax ka dumiyey oo kale waxaana yidhahdaan riyadaasi waaba sababta isku qabteen baa la yidhahdaa cabbaas iyo abi jahl baaba dhibi ku kala dhex mari gaadhay baa la yidhahdaa ilaa iyo uu ka yimi laakiin isnaadka qadiyadaas ku soo aroortay waa isnaad iska daciifa waayo waa mursal laakiin ده مرسل كان ضعيف في سنة كأنتي سكلا وحسن بينادان ابن إسحاق الله يو رجع إرساليين تلقى قارسينيو لبضا مرسلة دي اللي سوق يوم يسحوتشين يعني دوالة الماما هدي ما لها كساق على بحنا يكلا قديسين سكستها النقطة وحلا هذا نكى ضمضم هذا مقالة دايمي علماء التاريخ وحي شيئان ضمضم قابلنا حدين بضم بيسوء روريان يدنا ومقالة مركوسوق قليه أو كيبو كورا حاجة كلاو رجاي أو سانك صوت شراي أو مرض وسكسات طوري أو يعني بلايا شيء نومه si bidhaantiisu ay u tilmaamto uun hayayda iyo tolay iyo ka kacayda isagoo rooraya markaas iyo qaylinayo noocaas oo kale soo galay oo le allatima leh allatimadu waa xoolahan sida tiibka iyo waxaasi yani tijaaradiini war soo gaadhay isagoo leh ayuu soo galay quraysh warka kan saaciq abu ku noqday marka war ay qaadan kari waayaan waayo hore way u ogaayeen in dariiqa loo yara galgalay iyo warar caynkaasi iyo munaawashaad iyo rool leebab la isku turturiyo waxaasi laakiin de ma islahayn ba muslimiintu xoog inta ku soo baxan bay xoolihiina qaadi doonaan kumay talagelin mid kale xoolaha kan waxay hayeen ba la yiraahdo xoolaha aad u tiro badan leh oo nidaamkoodii ribowga marka lagu dhaqo waxa la yiraahdo hadii la yiraahdo 50 kun oo diinaar buu sidii de faa'iidadiisu 50 kun kama yaraanayso ugu yaraan waa 100 kun oo diinaar waa dhowr 100 kun oo kiilo oo dahab ah waxay u arkayaan inay khasaare aad u badan tahay quraysh markaa waxay isku urursatay inay xoolaha kan dhiciso quraysh waxay isugu tagtay xoolahan sida ay u dhacsan lahayd inay samayso ciidan iyo rag iyo hub iyo waxay haysay oo dhan way isu keentay waxay kale u aragtay arrintan inay tahay yani isla weynideedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo meel lagaga dhacayo in kooxdii yarayda ay magaalada ku dhibeen ay yaacday ee baxsiga ku baxsatay quraysh ba tijaaradeedii ugu waaweynayd inay qoladaasi hunguraysaa inay u tahay markaa nimanka kan yani wax la duleysanayo kale quraysh dulaysi la duleysanayo kale bay u arkeen inta aanay kaba fakerin qadiyada tijaariga ah oo ah yani xoolaha intaan leega la dhacayaba intaanay qiimeynba waxay u arkeen ba meelka dhac weyn inay ku tahay sharaftidii quraysheed in maanta waxeedii la boobo saasi daraadeed bay waxay cid haysatay oo dhan bay soo ururisay waxay yiraahdaan ninka xataa dib isu yara dhiga ama siraaraha odayada quraysheed ba u tago la canaanto yani waa lagu qasbaa dagaalka in loo soo baxo rawaayadka saxiixi waxay ku soo arooreen ciidan kun gaadhaya inay ku soo baxeen ibnu isxaaq biduuni sanad isagu wuxuu ku soo saaraa 950 nin meelahaas inay haayeen laakiin waxa la yiraahdaa ciidan kun gaadhaya way haayeen bal culimada taariikh qaar kamid waxay soo saaraan ilaa 1300 inay marka hore ay soo baxayeen haayeen si kastaba ha noqotee ciidanka si loo macnawiyaadkiisa loo xoojiyo loo dhiirigeliyo ciidan qura lama saarin ee xataa waxa la soo saaray baa la yiraahdaa dumarkii heesi jiray iyo kuwii durbaanka garaaci jiray iyo wixii oo dhan ayaa la soo kaxeeyo iyadoo durbaanka la tumanayo oo la heesayo ayaa la isu soo baxay baa la yiraahdaa waxay yiraahdaan si ciidanka loo dagaal galiyo aan loogu baahan kharash xataa maalgelinteeda waxa qaatay bay yiraahdaan nimankaasi quraysh odayadeedii waaweynaaba maalgelinteeda qaadato maalina 9 neef u qasha maalina 10 neef u qasha laakiin ciidankaasi markuu dhexda marayay baa la yiraahdaa ayuu Abu Sufyaan haddana war kala soo diray oo uu leeyahay badbaadayo xoolihii waan baxsiiyay hal celiya ciidanka dabeetana warkii baa yimi waxa la yiri hal celiya ciidanka Abu Jahl baa diiday wuxuu may sharaftidayadii waa dhimatay iyadoo intaanu tagno aanu jabino oo ku gal qalanno oo hablu noogu heesaan oo warkayga carabi gaadho warkayga carab meel kasta uu gaadho mooyaane noqosha naga dheer buu yiri waxa la yiraahdaa al-Akhnas ibn al-Shariq nin la yiraahdaa yiri warisaani simaha ciidanka hal celiyo waa la diiday markii la diiday isagu wuxuu yiri tolki reer banu Zahra wuxuu yiri reer banu Zuhra inay celiyo buu yiri anigu ninka la dagaal gali maaye ilaa 300 oo nin ciidan ah
ayuu ninkaasi dib ula noqday baa la yidhahdaa kunkii ciidanku dhadhawaada unbaa meesha tan soo socday ninkani wuxuu yidhi annaga dantaydu waxayd inaanu xoolahayaga ilaashano xoolahayagiina hadday noo badbaadeen dagaal uma baahnin ee waan noqonaynaa reerkan xaliif buu weliba lahaa bay kusii tilmaamaan laakiin maalintaa wixii ka dambeeyey baa la yidhahaa magac iyo maamuus buu ku yeeshay oo taladiisa dambe lama diidin waayo qorashisay u jabtay iyo suutolkii meesha uga badbaadiyey ayaa laba isyeelanay waayey noqday marka waxa la yidhahaa reer banu zahra waxyaabahay ku caanka ahayeen beder ninkagama dhiman baa la yidhi iyagu raggoodii oo dhamme way kala noqdeen sidii buu ciidankii ku soo waday abujahal habaarqaba ahaa weliba abujahal meeshii markuu soo degay wiilashii uu biyaha usoo dirtay dhaanka ciddii usoo dirtay khadamka ciddii u ahayd qaar ka midana muslimiintaaba gacanta ku dhigay oo weydiiyey waa kuway garaacayeen markay runta u sheegaanna way garaacaan markay beenta u sheegaanna way daayaan oo nabigu kula war iska daayay markii dambe uu weydiiyey ciidanka iyo tiradiisa musnad imaamu axmed xadiiska saxiixa ku soo aroray ee isnaadka saxiixa ah waa la weydiiyey waxay u sheegeen maalina in 10 la qalo maalina 9 neef la qalo dabeetana nabigu markaa wuxuu yidhi alqawmu 1000 كل جزور لمئة وطبعه وإلا كن مركا مردي مالنا طبعا لغشو نيف كي جيلي ونكساني وبقلبا عيدا كاللقوة ذكرياي مسلمين تي وركا قلدان لقبطي وحي شاكتي قريش عيدا كيدينين وهل كان صوص عضو أورتينا يو جيلينا يدبح سدنا أبو سفيان كحي لكن لقى مرة ما يصير مسلمين توحي شعلادنا إذا هذا وحنو أبو سفيان بانو كنمي يو عيدا إن الشجان ما يخربينا وحي سلاحين ده وصحن كي حولها دبتنا وكقرآنكم مسألة صورية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم بإلهين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني إن أي مسلمين تقار كمدي شعلايان قافلة يرى حولها هنا لكل مانه كويس وتلقين إلى عيدا كننا إنay la dagaalamaan waxa kale oo meesha yaala iyaguna bay'adii aynu hore u soo maray ansaartu ay nabiga la gashay kaleey salaatu wasalaam waxay ku salaysnayd inay magaalada nabiga ku ilaaliyaan laakiin dibadda hadii loo baxay halkaasi kumay bunuudeeda kumay jirin kharij al-Madina sida awgeed baa waxa la yiraahdaa ciidamadii yaraaye hore ee Badar ka horeeyay gaade uu nabigu dirayo dhamay muhaajiriin bay ahaan jireen oo qoladan Quraysh u diray inay ciidamadoodii waxooda laga horgeynayo dhamay muhaajiriin bay ahayd haatanna waa ciidan tiro badan baa meesha maraya oo ansaari u tiro badantay dabeetana nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu ogaaday in Abu Sufyaan iyo xoolihiisii tageen waxa la ishayaana ay tahay Quraysh iyo ciidankan wuxuu ku soo kaxeeyeen inay ahayd in Quraysh xoolaheeda in la soo qabto arrinkiina in wax iska bedeleen ayuu nabigu wuxuu la shiray markaa saxaabadii ashiru calayya buku cali daynu qaadana riwaayada khabarka ibn Isxaaq ee sanadka saxiixa ku soo aroray wuxuu leeyahay dadkii buu nabigu la tashaday calayhi salaatu wasalaam dabeetana Abu Bakr Siddiq baa hadlay si fiican buu hadlay dabeetana Umar baa hadlay si fiican buu hadlay waxa ka daba istaagay al-Miqdad ibn Amr oo isna saxaabi muhaajiriinta ka tirtana al-Kindi wuxuu ilaahay rasuulkiisiyo imdi lima araka Allah fa nahnu ma'ak kusaco wixii Allah ku faray ama waxa Allah ku tusiyo subhanahu wa ta'ala kusaco anuguna macaaga ayaan ku oran mayna buu yiri sidii reer banu Israa'iil ay nabi Muuse ku yiraahdeen idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun kumarihim buu yiri sidii ay reer banu Israa'iil markay hoojiyeen nabigoodii ay ku yiraahdeen baytul maqdis markuu dagaal tagayay nabi Muuse adiga iyo rabbiga dagaal gala anagu idin sii sugeynaa intaad meesha furanaysee sida kuma oranayna buu yiri ee waxaanu ku leenahay buu yiri idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ilaahay rasuulkiisa adiga iyo rabbiga dagaal galaanana waa idin la dagaal galeynaa إله حقق وصوصاران كل أرتبوا يدي هدي أدنى كحيسو إلى برك الغماد يعني ما يلفق بمركه وشيده لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ وقل الدررنا إلى ينتهي كجارين يعني مرة بكا حرمين نبي عليه الصلاة والسلام صدح ذا الصحابي مهاجرين تمركي سفي عنه هذين وأدعي مركو أدعي أيوه هذا النبي وكعلي ويدي أشيروا علي أيها الناس
ضادو إلى تليه وحيدها أي نبي عليه الصلاة والسلام إذا كم مغطى نبي مهاجرين تمويان الطرف كلا رأي قودنين ولي الرادينيو بل أنصاري وحيا شيء يدره ويا أنصار بانا مترضى أبضنيد ماشا مريسة ولابا بغولي ديراد لغا يابين هايين إسلام مركانا بيعادي أي لقى للنبي عليه الصلاة والسلام كميشرين قضية تاني يا رسول الله بي مركا أنصاري لهذه إنا براء وحي هوري ugu sheegeen oo ku jirtay baa la yiraahdaa heshiiskii ay nabiga la galeen ilaahay rasuulkiisa uu bari baanu ka nahay yaani ilaalintaada inta aad naga soo gaadhisay markii hore heshiis ku jiray oo madiina yaani marka timaada ayaan ku difaacina fa idha wasalta ilayna fa anta fi dhimmatina namna'ukum ma namna'u minhu abna'ana wa nisa'ana marka nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabsi qabay baa la yiraahdaa ansaari inay tiraahdo arrinkani kuma jirin heshiiskii aynu wada galnay markuu nabigu weedha ku celceliya marka waxa istaagay Sa'd ibn Mu'adh oo ansaar kamida wuxuu wallahi lakaannaka turiduna ya rasuul Allah ila baan ku dhaartay alla rasuulkiisa inaad anaga noo jeedaaban filaya markaad weedhan ku celinaysa ila taliya nabigu markaas uu yiri ajal ay nacam haayo idinka ayaan idin jeega wuxuu markaa ugu jawaabay saxaabigan ansaarigi nabiga alayhi salaatu wasalaam فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك إلهي رسول كيسي وبويري وانقر رمين وانا نرمي سنة وحياد نولت ميوردن وحانا نقوق الري شهادة إن أدوحا نتما يحق طهي ساسبانو بلنا يدي كوكسين waxaana ku aqbalaynaa ala sam'i wa taa'a baan markasta kula taaganayna ku yeelo ee famdi ya rasuul allah lima arat fanahnu ma'ak wixii adoon sayeel wa kula jirna ilaahi rasuulkiisiyo ilaa xaqa kugu soo saaran ku dhaartay buu yiri law ista'radta bina al-bahr fa khudtahu la khudnahu ma'ak haddaad badda inta tagtaad gashay bay dhahdeen oo tirada badaynu galeynaa inaan kula galeynaa ma ka harayno ma takhallafa minna rajul waahid nin quro oo ansaar kamid ah hal qof dib uma harayo wama nakrah an talqa bina aduwana gada kamana cabsanayna buu leeyahay dibna nuguma hayso bari inaynu cadawgeena la kulanno inna la sabr fil harb suddaqun inda liqa ilaahay rasuulkiisa iyo dagaal ragu sabir badan baan nahay buu leeyahay yaani dad soo dagaalami jiro dagaal u sabir badan baanu nahay marka la isweeraray ay runta timaadana qolo ka rugsheeg tabaanu nahay buu leeyahay la'alla allah yurika minna ma taqarra bihi aynu waxaan rajaynaa in ilaahay naga ka tusi doono waxay ishaadu ku doogsato ee fasir ala barakatillah ku soco ilaahay subhanahu wa ta'ala barakadiisa weedha markuu ka maqlay nimankii ansaarta ahaa ee uu yaqiinsaday nabigu alayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu meel kula wada geeriyoonayaan أيا فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول سعد ونشط وكفر حي نبي عليه الصلاة والسلام وادي سعد يدي دبتنا مركز بنبي وحكوي عليه الصلاة والسلام سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين سيروا صعد أبو النبي عليه الصلاة والسلام ودقال كلا بشاريستنا إلهي وحو إيه بلان قاضي لبدا كوحوت قلقوا نقعن تيدي قليه يعني أما أبو سفيان يو أورتي بينه هلي أما عيدك قريشيت بين هلنا لكن لبدا كوحات كوح كمدين إلهي قاعد تيدا قلنا يو إلهي بقى يبلن قاضي ووايد القرآن بسودقي والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحابد موداب النبي لنا أن أركيه ماشي ميت كود الله دقيقة ماشي اللي يقول لك ده يقوم كينا وضاركه nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay siday saxaabadu taacada ula imanayaan oo aqbalayaan iyo sida geesinimadu ku jirto ee ay kelmadooda isugu geysteen inay dagaalamaan iyo sida ay u rabaan inay naf iyo maalba u qadimaan oo ilaahay dartii u dhintaan oo aanay dan ka lahayn nolosha kale ayuu markaas wuxuu bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidankiisii u ururiyo ابن إسحاق دون سناد كسر رؤية طهارة وسند صحيح ابن إسحاق كسر رؤية قصة هراء تن ترتيبك
markaas buu wuxuu dhiibay baa la yidhaahdaa alliwaa calan cad oo ciidankoo dhan calankiisiiya waxa loo dhiibay saxaabigii la odhan jiray muscab ibnu cumayr markii horena ahaa ninkii uu soo diray reer madiine qur-aanka u dhigayay ninkaas baa loo dhiibay calankii ciidanka laba calan oo madmadowna waxa la yidhaahdaa waxa loo kala dhiibay labada katiibadood ama labada kooxood ansaarta oo sacd ibnu mucaad ninkii uu hadlayay hadda uu hogaaminayo calankeeda loo dhiibay iyo muhaajiriinta oo uu hogaaminayo baa la yidhaahdaa cali ibn abi aalib oo calankooda loo dhiibay labada ciidan oo la isku darayna yani ciidanka muslimiinta oo dhan calankiisana waxa la isugu dhiibay ninkaasi ninkaa la yidhaahdo muscab ibnu cumayr saxaabigaa la yidhaahdo saaqada ama dhudhunka ciidanka yani ciidamada waagii hore waxay u dagaal gali jireen maymana iyo maysara ama bidix iyo midig iyo qolo dambe oo saaqa iyo qolo muqadamo oo taliica ah saaqada markaa ama dhudhunka dambe waxaa loo dhiibay isagana qays ibnu abi sacsaca nin saxaabi oo la yidhaahdo halkan markaynu dhanka muslimiinta joogna waxaa muuqata ciidanka islaamiga oo dhammi inuu dagaal galo inuu isku wada raacsiisan yahay in ilaahay dartii loo dhintay in la isku raacsan yahay ama iyada dhanka gaalada markaynu tagno isaga khilaaf baa ka jira oo waayo hadafkii dagaalka hadafkii loo soo baxay markii laga yimi oo waxay ahayd inay badbaadsadaan awrtooda awrtii inay badbaadayna warkeedii wuu yimi waataynu nidhi qabaa'ilka qaar ka mid waxay dhahaan inagu dagaal geli mayna waa iska tegaynaa oo reer bani zuhra iyagu way dagaalka ka hadheen alkhanas ibnu shariiq ciidankaasi wuu reebay inuu yidhi 300 oo nin ku dhadhow intii soo hadho abu jahal weli ku madax adaygayo ayaa iyaduna waxay isku dayeen rag ka midii in dagaalka la joojiyo siiba cutba ibnu rabiica ninkii la odhan jiray iyo xakiim ibnu xazaan baan filayaa ninkii kale la odhan jiray ayaa wada hadlay waxay go'aansadeen in dagaalka dadka laga joojiyo laakiin cutba asxaabu taariikh say wariyaan cutba la yidhi bal adigu abi jahl masaladan ka dhaadhici asxaabu taariikh inay hadalla xunxuni dhex mareen bay sheegaan على كل حال عتبة وقن عنكري ويا أبو جهل إن دجال كلا تشوشيه أبو جهل قان أبو قاطي إنه دجال مايو ولما علماء التاريخ وحي شيء عن أبو جهل قان كمركو قاطي سأن عيدا كلوجا كلا تشبين نينكي صاحري لبديننا لصافرتين نينكي ولالكي لدلي سيرية عبد الله بن جحش هرين صايغني كصورني أيو يدوار أرض دواق waxaa tiraahdaa masaasaan xilfi wadaagidin kulaha walaalkay la dilay mee xooli mee oo tollaayayda dheh ciidanku ha dagaalamee abu jahl ra'yigiisii ahaa inay gaaladu dagaalantaa ayaa xoog batay sida imaamu tabari sanad xasan uu ku soo aroorinaya taariikhdiisa ra'yiga abu jahl ee in la dagaalamo markii uu xoog batay ay mushrikiintii waxay isku dayeen in bal haddaba ciidanka loo soo basaaso nin bay soo direen marka ka mid ah oo jaasuus ah oo la yidhi bal ku soo samee kormeero soo eg jaasuuskii wuu yimi si uu soo hubiyo cadadka muslimiintu inta ay leegyihiin iyo hubka ay haystaan noociya iyo waakaasi jaasuuskaasi war buu celiyay uu tilmaamayo nimankani inay yihiin niman horta waa koox yar buu yidhi intaan soo arko 300 ama wax yar bay dheeriyeen ama wax yar bay ka dhiman yihiin isla markaa buu yidhi waa xagga dambana balan soo eego dib buu sii cararay oo wuxuu yidhi wax madada iyo taakuleen ka dambayso soo socotana ma arko laakiin waxaan u arkaa buu yidhi koox yaroo madadka iyo taakuleentay wataan seeftooda harsanaya yacni ninna kama dilaysaan inuu halaaga mooyaane marka waa koox ku tala gashay buu leeyahay geeri unbaa meeshan joogta ee koox caadiya maaha tira ahaanse waa niman yar buu leeyahay abu jahl laakiin caqli xumadu biniaadamku markuu kibro caqligu uu ka tagaa أبو جهل وأن كبري دتكنا مرة دو كبرت هذا وساقة أبو جهل كبر كيو عقل كيو كتجي يدون من كاسي ولي تلا بحنا يعني من كاري أنت يين اللي جنين قد لين مو يعني قبوا سكال كودير كريمنا نقنّو وادي ده أبو جهل تلا أردن دقال وحنا هين وما أنت أقبل كراه ما تشرب ويري قوان كاس وقات وحلا إذا قوان كبر وقات عيدن كي دقال كشدي أيابو بلابي عقل حمدي سينو إلهي بريه أو إذا هذا إلهي ونجي محمد كايجر رحم جويس كبدان لأن كايجر حن إله وتشبي أيوة بتناب هبارتم كبلاب اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة ويدي بالي
ilaahayow ka iyagii la yimi waxaan la garanaynin ee raximkiiyo tolka qaana gooyey ilaahu kaa aroorta goo isagu wuxuu isleeyahay maxamed baa la yimi waxaan sax ahayn ama se wuxuu isleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qaraba goysa oo caynkan sameeyey ilaahu kaasi uu maanta go'aa buu leeyahay oo waagu markuu bariyo kaan waxba ka hadhin xadiistu tilmaamaysana waa ka aayaadka qur-aan ku soo degeen mas'alada tan ee ilaahay tilmaamayo in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu baa ilaahay yidhi haddaa ilaahay weydiisanaysaan inuu idinkala furto waa yimi baa ilaahay yidhi furashadii wain tantahuu fahuwa khayru lakum haddaa ka waantoobaysaana waxaana waddaan ka noqonaysaanna waa idin khayr badantay wain tacuuduu nacud haddaa soo noqotaana waa soo celinaynaa baa ilaahay leeyahy walan tugni cankum fi'atukum shay'a walow kahurat waana allaha maca almu'miniin tirabadnidiiduna waxba idinka tari maysa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kooxdiinnu waxba idinka dhicin maayaan xataa hadday tiro badan yihiin ilaahayna kuwa mu'miniinta ayuu la jiraa muslimiintii beder iyo biyaheeda iyagaa uga soo horreeyey sida uu tilmaamaya xadiis sanadkiisu yani xadiis mursal ah oo sanadkiisu ilaa curwa waa saxiix laakiin dee mursal inuu daciif yahay baynu naqaanaa waxa uu sheegayaa alxabaab ibnu lmundir ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa meel tilmaamay in la dego markaasaana buu yidhi meesha tani makiida dagaalba ma taktigi dagaal baynu u degaynaa mise waxyaa soo degay inaynu halkan degno markaasaa la yidhi maya waa taktigi dagaal baa loo degayaa taktigi dagaal halkan waa laga fiican yahay buu leeyahay biyaan xagga hore ka marno oo nimanka biyaa la'aan aan dhigno ceelasha biyaha inagu dhabarka aan iska marino si aanay biyo u helin markaas buu aqbalay buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi waa xadiis daciif ah sixadiisa laakiin mid baa iyadu iska cado ah mabda'a shuurada iyo inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kasto aan waxyi ka soo degin inuu saxaabada kala tashan jiray taasi waa arrin nusuus badan oo qur-aan iyo sunnaba ay tilmaamayso sheegaysana in dhaqanka dadka muslimiinta ilaahay baaba le wa amruhum shuuraa baynahum ama nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku leeyahy washaawirhum fi lamr arrinta kala shir dhaqankii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaabaa ficil inaanu qabanin mar haddaan waxyi ka soo degan ilaa inuu la tashado mooyaane tala wadaag inay waayo taladu waxay keentaa dadku markuu wadaago koow waxa suurtagala ra'yiga fiican inaanu kaaga ahayn lagu tusiyo midka fiican waa suurtagal waxa kaloo suurtagal ku jira iyaduna dadku inaanu markaasi istuhmin hadday jabdhaco in jabka loo wada adkaysto aan cidna eed la saarin waayo cid waliba talada way ka qayb gashay oo waa ra'yigii jamaacada oo dhan ra'yiga kane hadduu nin qudhaydan marsiyatiisoo jujubsiyo aad jabtaan berri mar dambe la aqbali kari maayo ninkaasi ama waa ninkii shalay reerka jabiyaa la leeyahay laakiin haddii marka horeba talo lagu wada galay oo dadkoo dhan ay ka dhaxaysay nin waliba in la jabay wuu accept garanaya ama wuu aqbalaya yacni shuurada wax badan oo faa'iida ah bay leedahay markaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ahaa wax walba inuu ka shuureeyo haddaan waxii soo degin idan inkastoo xadiidku daciif yahay baciid maaha inuu nebigu tashado calayhi salaatu wasalaam waana arrin uu ku barbaariyey saxaabada رواية صحيحة مركز إنه قاضنا علي بن أبي طالب ورينا يوحليه هبين كي تضبيه طبعا رمضان يا هاي وحنو هبين كاسسة حنا يبولي هاي لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم بولي مالتي بدر نغمدي واداد نارك لا يبولي مجرين قف نغمدي لا يهبين كاسي وصيحري إلا رسول الله موياني صلى الله عليه وآله وسلم habeenkii dagaalka la gali doono dhammaantood way wada seexdeen nabiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam nabigu isagu muu seexanin habeenka kan saxaabadii kale oo dhammi way seexdeen nabiguna wuu istaagay habeenkaasi geed buu tegey hoostii wuu tukanayey ilaahay buu baryayey ilaa waagu ka baryayey buu leeyahay wuxuu kaloo cali ibn abi aalib uu leeyahay habeenkaasi waxoogaa roob ah ayaan helay oo lagu qabowsado roobkii markuu nagu soo da'ayna buu leeyahay dadkii dhirta hoosteeda ayay galeen dadka badhna wixii sitay maxaa la yidhahdaa tars ama gaashaanku dee harag buu ka samaysan biyaa wuu celinayay ragga badhna gaashaankoodii bay hoos fadhfadhiisteen buu leeyahay badhna meelaha kan iyo dhirta ayaa roobka laga galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi oo dhan ilaahay buu baryayey isagoo leh allahuma inta ahlik hadihi alfi'a laa tucbad ilaahow kooxdaa yar maanta haddii ay la halaago ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo yacni wuxuu tilmaamayay in islaamku jab ay u tahay
dagaalkan maanta diin iyo diin la'aan inay joogto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamiga inay quwoobaan inay ku xidhantahay dagaalkaasi inay guulaystaan wuxuu leeyahay cali ibn abi aalib siduu ilaahay u baryayay baa markuu waagu baryaana loo yeedhay iyadoo la leeyahay asalaa cibaad allah asalaa markaasaanu dhirtii ka soo wada hoos baxbaxnay buu yidhi gaashaamada iyada iyo wixii halkaas buu nebigu nagu tukiyey calayhi salaatu wasalaam isaga oo markuu salaadiina tukiyey kadibna dagaal aad noogu booriyey buu yidhi xadiidkii musnad oo imaamu axmed buu ku yaalla sanad saxiixana uu ku soo arooray dagaal isagoo aad noogu booriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam روايات ضعيفة يجوا حي شجعان تعبئة الجيش هي تهيئات ودين هبين كده ما يسترنتي لكن روايات علي الصحيح وحي المامي سهبين كاسين لسكسح ضيون لكن صبحيون يا هيد وقت دجال كدتك كبرني يدي رجلني إن حديث كاسيسو شجعين روب كان يسود أي أمين يساحدين وحكا قفل أنبا آيات كقرآن إلهي سبحانه وتعالى وقينا قلت المامية إن ألا السيحيي وقرآن إنه سود دقي إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وقال الله سبحانه وتعالى تلمام إياه إن أكسود دقي هردو إياه إن رب الله سود دقي آيات كقرآن أبا تلمام إياه مركز أفير سطو سود دقي تنو إلهي سبحانه وتعالى كسود دقي هردده هردده هو شيء qofka bini aadamkii uu nashaad dhammaantii dareemo qofka bini aadamkii markuu daalo waxa qura daalka bi'iya waa hurdo hadduu seexdo qofka bini aadamkii wuxuu dib u soo kacay isagoo nashiita oo fresh oo aan kii hadeer daalay ama cabanaya aan ahayn hurdadu waxay kaloo astaan u tahay qofka deganaanshiyihiisa qofka bini aadamkii wuxuu gamaa marka uu mutma'inul qalbi yahay markuu xasiloon yahay أما قفك جوب وبقية هدو جوجا هردا كما تماط يعني قف بقية هردا كما سودكتو قف وروريو والهيان هردا كما سودكتو هردا واحد كسودكتو أو ننحصلون نما ورورنا هينين بقنا هينين إذا جوب دجال هذا جماعة هذا معناه هدو حويان قف كان إنه مطمئن بيه قف الدجن إنه يهي وصفي عنه هذا دجال كيسوى ذكره قف ورور بدنا كهين دجال كان يوحنا إلهي سبحانه وتعالى صحابة مركا isagoo qalbigooda dajinaya oo lagu talagalay aroorta bariya inay si fiican u dagaalamaan waxa uu Alle subhanahu wa ta'ala ku soo dajiyay hurdadaasina waxay ka mid tahay been leena waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gargaaray ayay ka mid ahayd hurdada tani waxa kale oo Alle subhanahu wa ta'ala ku soo dajiyay roob oo markaas dhulkii macrakada iyo meeshii ay ku dagaalamayeen oo dhan Ilaahay uu nabay subhanahu wa ta'ala oo uu hagaajiyay oo roobkani mid laga cabo uu noqon kara ciidda iyo dhulkan oo dhan mid hagaajiyo meesha lagu dagaal galayo ay fiicnaato waa noqon kara yani wuxuu ka mid yahay roobku waxyaabaha nafta bini aadamka haddaanu noqonin mahigaan dee qaada roobka yar ee waxoogaaga ahi mid isagu laftiisu nafta raaxo geliya idan waxa ka muuqata habeenkan ay dagaalka galayeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dadka kan dajiyay oo lagu tala galay qalbigooda in ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام بإله المامي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر بكم إلى إبراب دين سودتي سيدكم طاهر يا ليل والشيطان كي رجس كيسا قولن كي سيدين كحيو وقلبنا والله وأتكيو وجمدنا وصقا وضرر كرتان أي إلهي سبحانه وتعالى سيدنا وقال واقي مركو بريينا وحنا موقطون هبين كي النبي قونين وهاعد تقول سوتشي ده حارس كهيدا مدد كان إلى لنيس waagu markuu u bariyayna waa dagaalgelin ayay ku tala galeen subaxday markaa ramadaan 17 ahayd ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii isku diyaariyey sida imaamu axmed musnadkiisa ku soo aroorinayo subaxaas waanu safay ciidanka waxaanu u safay nidaam sufuuf inay u dagaal galaan waa ka tilmaamaya yani nin caalim oo muslim oo dhintay dhawaan maxamuud shiit khitaab yani janan ciidana ahaan jiray wuxuu leeyahay usluubku nabigu uu u dagaal galiyay badar iyo dagaalo badan oo ka dambeeyba waa usluub aanay carabi hore ugu dagaalami jirin
أسلوب كان صفوف سيدا صلاة الله قالوا كلا صفوف أبو نبي جود دجال كلي لكن عرفت أسلوب بدي عنك هاي واجا لو دجال قال يشري وح عن شري أسلوب الكر والفر أسلوب قلبك وحين دجال قال شوك صوب حدو ساسي الكر والفر الله سمايه رجع العلين يكبحس سأل الله تكلمه أسلوب كان بيد هذين صفوف وحكوف في عين كو عيدا كمركو يري هاي وقف في عين الفر والكر عيدا بدن بسمايه بيد هذين وحكى له كف في عين بيد هذين خصائر تايوكو يريح وحكى له كف في عين بيد هذين قائد كعيدا ككتلينيا زمام الأمر قعنتي سايكو ذا شريه وحكى له كف في عين بيد هذين عد كستو صاق شلون عكنا صفة ضيا لو علين كره إذن والنظام أنا عربي هرو وقوم بولي النظام كل نبي كان وصبح الصحابة يسوي دجال قليل صفوف تاسي مركز سمي نبي عليه الصلاة والسلام إسقى حق الضمبة أي عريش يرلوغر دسي قبير أو مركز عيدا ككوه قامية قبضاير لورد السنة سروايد بخاري المام سعد بن معاذ باكاني ودي لا رسول كيسيو عيدا كان عيدا ير مسلمين بدرنا وكادم بيسا وحول بنا ودعي كران قوبتن دجال waxaan rabnaa inaad dagaalka xagga hore aad ka gelin xagga dambe inaad joogtid oo mar kasta oo ciidankan xataa hadduu jabay in la heli karo muslimiin badan oo Madiina ku harsanayda ku soo taakuleen ku soo gaari karta marka xagga dambe meel yar looga dhisay waana qaacida macruufa ah ciidan kasta oo meel dagaal galaya in maamulkiisa ama ciidanku si aanu maamulkiisa u lumin cid ka talinaysa in la ilaaliyo maxaad u malayn bada ummadda nabigeed waxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay dagaalka inaanay gelin ilaa ay amar isaga ka helaan mooyaane dagaalka inaanay gelin oo weerar inaanay qaadin amar in laga helo mooyaane wuxuu kaloo nabigu faray calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi marka la idinku soo qaadee weerarka la idinku soo qaadaba seefta galka ha ka saarina buu yidhi seef waxay idin galaysnaada waxa adeegsataan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gamuunkiina leebkiiyo qaansaduna adeegsada oo ciidanku markuu soo yaacaba gamuunka ku rida oo waliba wastabqu nablakum ha iska tuurtuurinuna hubiya oo marka idin soo dhawaadaan ku garaaca waa usluub jadiid bay yiraahdeen oo ah ciidanku xoogiisa iyo seeftiisaba inuu dib u dhigto waa halkan maanta laga isticmaalo ciidanka intaan dagaalka la gelin dee madaafiic baa meesha lagu tumaamo kadib baa la yiraahdaa inventorygu inuu galo sidan oo kale waxay ahayd yani gamuunkani waa madfaca qudhe la hayay gacanta ka baxaya ciidanka ku tumaya marka ciidanka waxa uu adeegsataan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam gamuunkiina marka gamuunka ku dagaal gashaan kadib ayaa la rabaa in seefta lagu dagaal galo wuxuu nabigu faray marka qofna inaanu meeshiisa ka dhaqaaqin sidaa la yeelo sidii bay ku dagaal galeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markay mushrikiintu soo dhawaadeenna dagaalku uu bilaabmayna wuxuu u faray قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أكعبوا نبيكم مركا أمر قرآن أمر كسية جنة بل عيد ولقي عركا يدل كمبا السماوات سماوات كان والله اسكدري يدل كجنة بل عيد ولقي أكع على هذا عمير بن الحمام الصحابي قال هذا عمير بن الحمام الأنصاري أيوح مقلي وردة تفتن النبي يقول سؤالك عليه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ما هدي هلك لو غريده waxa leeyahay janno cirkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhan bal ceed leegi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam qaala bakh 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 buu markaa yidhi ama bakhin bakhin waa ay carabtu ay isticmaasho ah yani waxa markaa la yaabto taajub loo yiraahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma yaxmiluka ala qawlika bakh bakh حافوك اللي فينا بخبخت الأدب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها وحكى لي يقوم كلفين بودي له رسول كيسيو إن رجينا يوم أن قوة كم بدنا قدمه يعني وحديث صحيح كوي علي مركز بوح وكويري نبي عليه الصلاة والسلام فإنك من أهلها هذا أهل الجنة كم تهيبون نبي كويري دبتنا الصحابي قالوا على ده وحوجات تمروا هيستووا مركز عنيي وصلاة دقالك عاد بلود تمرتي سيبو صوصا مركاسو مدار كعونا دبتنا وحا لفوقاتي انو تمرتان دمايستو إلا إن جنة الله شيء عرك يدولك بك بلادن إن لقوا يرادو عرك يدولك بوح كوي ما هليسا دقالك حلقة بين ودقال الله ملادي لنا غريبة الهلية ما وحوقا حلابة الهلية لكن يدو لقوا يريد جنة عرك يدولك بكوي
ayaad mujarrad inta dagaalkan ku dhamanayso inay kaa xigtaa idan geeriday nolosha markaa ka jecel yihiin sida awgeed buu timirtii eegay wuxuu yidhi lain ana xuyiitu xataa aakula tamraati haadihi inaha laxayaatun tawiila wallahi ku dhaartee buu yidhi haddaan sii noolaado inta aan midhahan timirtaa ka cunayo tani waa nolol dheer buu yidhi yani timir dhammayso hadday arrinku joogo waa nolol dheer buu yidhi timirtii buu iska dhigaa layidhi waa tuuray فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل دبتنا وقد قال قال إلا يوكا نفتك بحيس عمر بن الخطاب وحينا شيء ما لن تأسيب بدر رسولك عليه الصلاة والسلام مشركين تو يجيبوا إلا كننا دبتنا الصحابة دي سو يجوا صدح بالي دوري طبنا مركزوا قبلة ده وتشست وقعمها آد وتجيبوا لي isagoo nabigu qaylinaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baryaya oo leh allahumma anjis lii ma wacadtani allahumma aati ma wacadtani allahumma antahlik hadhihi alcasaaba min ahli alislaam la tucbadu fi lard ilaahayow ii soo deji wixii aad ii ballan qaaday ilaahayow isii wixii aad ii ballan qaaday ilaahu kuwa yar haddii la halaago yani waxaa meesha ka muuqata oo runtii si fiican loo tilmaamayo qofka muslimka ahi meesha uu xoog iyo midadka ka dayo waxaa laga yaabaa innaga markaa dhibtu ku qabsato waxa koowaad aad ka fakartaa inay noqoto bini aadam war xagaadu kacda talo kii hebel ahaa miyaad qabataa mise ciduna aad sileedahay waxbay ku taraysaa marka koowaad maskaxdaada waxa ku soo dhacay inuu cayn ka noqdo laakiin waxaad arkaysaa ambiyada iyo saalixiinta dadka wanaagsan marka mushkiladu qabsato waxa koowaad ama meesha koowaad ay u kacaan inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa biyadihi alkhayru kullu ilaahay gacantiisa wax waliba ku jira idan qofka mu'minka waxa habboon wax kasta oo dhib oo qabsada meesha uu la aadaya inay noqoto qadiyadatan maalma ka mid ah waxaan arkay nin wadaada runtii oo dadkan cibaadada jecela mas'alo ii sheeg aad baan ula yaabay waayo waxaan ahayn waxaan dadka ka bartay waa Norway isagoo jooga oo dhul gaaleed jooga ayuu gurigiisa ka ambaday gurigii buu waayay guriga markuu waayay de waxa kugu soo degdegaya kood waxa weeyaan kalendarkii laga eegi jiray boosta iyo ama taksiino kristo idhaahda adreska ay geeyay ama inuu cid weydii waxaas hadda qofka maskaxdiisa gurigii markaan waayay buu yidhi baan istaago ilaahay baan bariyay ilaahu gurigeygii ii tilmaamo aan helaa baryadii markaan dhamaystay baan dhaqaaqay buu yidhi toos baan u galay yani ninka maskaxdiisa waxa ku jiraan ka yaabay waayo waxa koowaad uu ka fakiray baa waxay noqotay maad ilaahay kaalmo weydiisatid intaanad cid kale bini aadam war sakadaasi xagee xigtaa iyo adreskaasi halku ku yaalay intaad waxba odhanin ilaahay maad wax weydiisatay idan qofka mu'minka waxa dhaqankiisa caadiga ah mushkilad kastoo ku timaada albaabka uu garaacaya inuu noqdo ka alle subxaanahu wa tacaala waayo ilaahay baa wuxuu yidhi anaga gacantayda wax waliba ku jiraan sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasi in badan ilaahay buu baryey siduu ilaahay u baryayey baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam baa go'i ka dhacay go'i sare saara ayaa ka dhacay أبي بكر ومركان دتكي إلى لنا يلا تشوجيا أيه وحرية يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك إلهي رسولك سيو أنت نادى لبر إذا ويدي كوفلا بكيري وأنا كوفلني يا إلهي سبحانه وتعالى وحقوق الله قاضي دبتنا عمر وحلي وحسود آيات كقرآن إلهي لي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة بولي إلهي بوحلي وحا حستان marka ilaahay kaalmo ka dalbayseen ee ilaahay uu idin ka aqbalay ee uu idin soo dajiyay malaa'ik kun malag oo idin la dagaal galo istaba socda sidoo nabigu u bariyay baa nusuusta quraani ku soo degtay dabeetana carishi wuxuu ka soo baxay nabigu isagoo roorayo le markaa sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur isagoo aayaadkaasi akhrinaya sayuhzamul jam'u kuwan soo urursaday waa la jabinaya wa yawalluna ad-dubur ودب تشيدين يعني سجوا النبي يقول آيات القرآن أو القرآن كي هو سود دقيقة سجوا مركم كوع العلين يبون النبي عليه الصلاة والسلام صواب حوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. أن علي بن أبي طالب نواكت المام يا نبي عليه الصلاة والسلام دقال كأنتم مباشرة نفتيسه لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا حديث إمام أحمد ورينيو أحمد شاكر نولي والصحيح أي علي بن أبي طالب حلي واحد أركي مالتي بدر إذا أنه نبي قد بقى قبنا نبي لي ونبي نعد وقبنا وقحقه مالنت أنا الرجل نقود قالتك أي نبي وهابو لي عليه الصلاة والسلام مركاسي وكصوب حي عريشكي أو دقال كصوق عليه دقالك كان يوحو كوب بلابمي كو مبارزات
mubaarasadu waxaa caado ahaan jirtay ciidanka raggooda isbida ee geesiyada ama marka hore isu bixi jiray mubaarasa ayuu ku bilaabmay oo uu horkacayo cutba bnu rabiica iyo inankiisii iyo walaalkii waa laba nin oo walaalaa iyo inanuu midkood dhalay saddexdoodaasee mubaarasa u soo baxay waayo waxay yidhaahdaan cutbo waxa soo qadimay waa kuu abujahal baa markuu dacaayadeeyey wallahi intafakha saxru sababada karaya buu yidhi yani wuxuu ku dacaayadeynaya uu lahaa wuxuu arkay buu yidhi ciidankan ka soo horjeedo akalatu jazuura in la qabqabanaya inaanu dhalo kalena uu ku jira yani inaanu dhalayba xagga muslimiinta ka soo jeeda marka wuxuu is yidhi maanta inankaagu yuu dhimanin caynkaasi dabeetana waa afkaa ka xumaado waa inoo berri baa la yidhi keenna sababku karaa barraad arki doontaaye saasi daraaddeed buu mubaarasadii koowaad baa cidda soo baxday waa odaygii cutba ay ishayeen abujahal iyo walaalkii iyo shaybe ah iyo inan ay dhaleen oo weliida la yidhaahdo intaasaa soo baxay dabeetana safkan muslimiinta waxaa jooga niman aanay quraysh sarag laakiin cadho dhammaanteed u ciil qaba yani muhaajiriintu waa niman ay quraysh hore isu yaqaaneen iyo raggooda laakiin safkan ansaarta la yidhaahdo ansaartu waa niman horta dagaal hadda ka soo baxay bay ahayn xarbu bucaad bay ka soo baxeen waa niman aad u dagaal badan bay ahayn isla markaasi waa niman aan gaalo dagaal weli la gelin ama gaal aanay gumaysan sidooday ku islaameen guryahoodii bay joogeen dadkooda intii u badnayd baa islaamay markaa magaaladan ay ku koraan islaam baa hogaaminaya niman dhallinyaraana way u badan yihiin shabaab aad u xamaasadaysan oo kacsan oo maqlay uun niman baa nebiga ku dhibi jiray maka ee ilaahu yaa indhaa idinka qaada uun dhallinyaro leh nimankii nebi maxamed wixii la ogaaya dhiba u geystay ayaa meesha iska jooga saa daraaddeed mubaarasadii markay kooxdani soo baxdayba markiiba waxa soo booday saddex nin oo dhallinyaro ansaar ka mid ah saddex dhallinyaradii ansaareed ka mid ah ayaa markiiba u soo baxay dabeetana waa diideen qoladii quraysheed baa waxay dhaheen may waxaanu rabnaa tolkayo nimankii naga yimi ee ragga fasahaadiyaanu doonaynaa bay leeyihiin dhallinyaradiina tan uma soconno nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu amar bixiyey oo yidhi kac xamse kac cali kac cubayda وعبيدة بن الحارث بن المطلب وصدح نينو فاملي النبي عليه الصلاة والسلام يا حمزة ديرك الرمى يا علي أنا ديرك الرمى وصدح نينو صدح لما يسكو فامليهين أيو نبغو كعي مركز سوري بحا مبارزة صدح لتنبا وبحي لأن حمزة كموها كان مركبة وضيقي كوادع عتبة أيو كتخلص علينا وحالي هذا الشيء بابو كتخلص عبيدة يولدنا لبس يفوت بيسويدا ستين بالنا سنن أبي داود حديث كو صحيح هنا يساس الشيء إن كستو علماء تاريخ تبدنا يسويداريا أي كدقان شيبة يو عبيدة هنا هاي لبدا سيفا يسويدا أيا كانت سدح ديننا سدح ديننا يسوس بحي لبا مركبة ولا تخلص مدنا لبدا دي لبا سيفودا هالس يسويدا سدنا ويدعين dabeetana labadii saxaabe labadooda ka takhalusay cali iyo xamzo iyagu markiiba labadoodii dilay ayaa ku soo karceliyay kii kalano kii saddexaadna nafta ka jaray koodii dhaawac ahaana dib u qaatay saxaabigan dhaawacii markii badar laga noqday dhexda la sii socday ayuu isna nafta ka baxday oo shahiido saddexdii koowaad ee mubaarasadii ka soo baxay mushrikiinta saddexdiiba waa la dilay caradii waa ku sii badatay quraysh isla weynideedii saddexdii oday hore ay soo qadintay marka saddexdii baa laga takhalusay caradii waa ku sii badatay dabeetana hujuum bay bilaabeen weerar bay bilaabeen weerarkii ay soo bilaabeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bixiyey amarkii ahaa gamuunkun garaaca oo seefaha ula bixina yacni yaan safkaba la soo gelin ee gamuunkaasi uun ku tuma sidii baa la yeelo gamuunkii bay ku tumeen waxaana la tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu sacab ciida qaaday baa la yidhi uu ku saydhay شاهت الوجوه سقوله صعب كي عيدا وكصيدينا إلهي بين داك ودقليي وكقرآن كإلهي كنت الماميو وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ما تورين با إلهي دي مركي أطورتي يعني توريا دا عيدا واتورتي لكن توريا إن دقشا ضدك قفوف إن دا وصو قشا صعب عيدا هدا تورتي دا ما قفو كل دعي أما مالها سو كل دعي لكن عيدا دا إنه إيشا كقلا يد وقد يتكله إلهي بمركا وحليه سبحانه وتعالى وما رميت إذا رميت مركا تورتي وحبا ما تورين با إلهي ليه ولكن الله رمى إلهي با قني
وعنده هذا وذا قارسيي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لبدي عيدا مركا سوا كل من دقال آدو أدق بانا كدعي مركا أو مسلمين تنا آدو من تديان قال دينا مركي بوالا لكعي قوبتن رقاءات كو من تدي حقا قال هذا كسو جيدا وحكم هذا لا يلحظا الشيطان كي عمر بن هشام لو نجري أبو جهل ولا هذا دقال أنت بكم ده لكن سيدا حديث صحيح ده يتلمام يسوع إستغنى لبس صحابية أو يرى أنصارتي كم ده أياك تخلصي مركي دنبنا عبد الله بن مسعود بابا مدح كسوقوي يعني دقالكم مركو سيئات كاضي عبد الرحمن بن عوف وحلي وحا ويل يرو دلير كميدون با hareerta iga soo galay buu yiri markaas wuxuu ugu yiri buu adeer waxaad ii sheegtaa ninka Abu Jahl la yiraahdo maxaad ku falaysaa baan ku idho ilaahay rasuulkiisu caay jiraa la yiraahdo kaas maanta sii deyn maaye itilmaan buu leeyahay nimankan Abu Jahl raadinaya garamba maaya way ismay arag ee waa dhalinyarada reer Madiina aan tilmaamayno deetana wuxuu Abd الرحمن بن عوف oo nin muhaajira oo reer Makaab wuxuu leeyahay adeer aniga itilmaamuno waxaad ii sheegtaa Abu Jahl ninka la yiraahdo كين تانا نجوابين بولاي بعدين عكلا ويل كلا إسكا كيسو تاجبوله إسرع صار كميدا ومعاذ بن عمر من الجموح يا معاذ بن عفراء ويان أي دين عسكا كيسو تاجبوله أو إسنا لبوله أدر إيش يا أبو جهل واكي لبدي ويله متبدل يجوا يدين يبوله أبو جهل كوي هاي أيانا ركبوله أبو جهل وجد وين أدمو ضال كاسكا تقالما يا دبت أنا وحنا نبوله واكا أبو جهل كرادين إنسان labadii ba waa biibeen bulay waa duuleen oo wax isku la sii daayeen Abu Jahl ninka la yiraahdo dabeetana kii koowaad seef uu ku dhuftay isagana wiil uu dhalay oo Ikram oo meesha taaganaa baa seef ku kiciyay kii labaad ba hadana ku kiciyay labadiiba dhulkay ugu tuureen Abu Jahl ninkii la oran jiray Abu Jahl oo dhaawac ba la yiraahdo meel iska yaala ayuu Abdullah ibn Mas'uudna soo maray intuu halka lagu tiskay taagay ayuu madaxa ka soo gooyay Abu Jahl markaasi وجيريودي أو واحد دلي لبدوي نمن كواوين معركة لجود دلي واحد كم ده أمية بن الخلف أمية مركي قال ده للشبيي أي شبان بدنا لقب قباني تدباتني ولا جد دلي تدباتنا ولا قب قبطيبي هذا علماء السيرة يدا الله حد أيه روايات كصحيح سيكو صار واحد عبد الرحمن بن عوف أيوه قبصة ديبالي لنجي لورنشري أمية بن الخلف iyo inaan u dhalay isagoo xadhiga ku xidhxidhanayo wata علماء السيرة ولما تاريخ دير بيسيش كان واحد على بعض النبرجة ورئيس صاحبها أنا دبتنا عبد الرحمن بن عوف ورسنا يا دروعي هو يوحي وهلي يقول برميان الديال عنا لدون إن ما أنا كل بوالله يحرق يا وكان الله يقبيه أدوق حيسا يعني أدوق الديال هالشيء سكستها هات والله قبطي إياه وحرق كوجي تستيا وطه أيها وحاركي بلال أمية بن الخلف ونكي بلال أنتو دقا حلابتك السارة عدعيدة ديجي جري مشرق آها دبتنا بلال باركي نكي أو لهايو بلال باكو مصنع ومركاه لا نجوت إن نجابو يري إلهي وحنقو بلنقالي إنا نبت قلين هدا نبت قاله يعني لبدا نمتكينون وما أنت لوايا مويانا أنا نبت قالي جرين أما أدار دمانيا أما أنا دمانيا وحلا إذا عبد الرحمن بايد وروا محبوس كي قال داي ولا نجوت النجا ذبو قيلي رأس الكفر بيقول أمية بن الخلف بالكتاجن أبو مركي مغلين بلال قيلدي سبع دل يردي دجال كوشرتي مركي بسور قال عليا بلال يو روايات صحيحة غير كم يدو حيت الماما يعني وحيد مركان أركين ما لهيو عبد الرحمن بن عوف أيام ويل كيسي علي ورهيب بيقول أنا دوارنا مشغولي ولأنه عبارة قال ما يستجي الدلان وأنا لب حسن كراء محبوس كان محبوس نما وكحيسته كي يرى مركب وقت خلصين دبتنا وكسو قارن مركان ركب ودينا لب حينين بام قيلي بودي دبتنا واحد يقول ورفع رسالة بركود عيان دو شكافوله وبلو كوقارية إن اللي قدايه وفارستي بودي مت قروي يبوها يا دو شكا كوري بودي لكن سيفي حريرة يجسوا قليان بودي هاستا نبر بوتوسي جري عبد الرحمن بن عوف برقي دنبه ورن جري سيفاي هوست كحلولن ينبه أن هلكا كوبكا يجا جريان بودي سنة way ka takhaluseen Umayya ibn al-Khalfna meesha ayuu ku go'ay isna kama tagin
يعني قرآن إلهي سبحانه وتعالى وحين قلت المام يا مالنتن بدر إن ملائك بدن إلهي سود دايي ودقالك كقيب قليل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين هي نصوص طلمدة وكري كري إلهي سبحانه وتعالى ملك الجبريل قل انتو يمادين حقك لو رغو جبريل قرأكم في الله لكن إلهي وحو الربين ودد كان لا يتحام وليبلي المؤمنين بلاء حسنا وكان الله سبحانه وتعالى وعلى الربي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم من دد كان لا يتحامه وإلهي سبحانه وتعالى أسلم بوا كري كري الدين تيسه النبي هل ملك لو صدر وحي ديده ودولك لا جرا ونو اساسي ku socoto dadku qasab ku aqbalo laakiin ilaahay wuxuu tala galay juhdi bashar inay ku socoto awood bini aadam inay ku socoto isla markaa dadka in la itixaamo oo dadka dee loo soo dajiyay lagu itixaamo waxa ilaahay rumaynaya waxa beeninaya ilaahay walba cid walba waa qasbi karayay walidalik ba malaa'ikta timina qaabkii bini aadamka kalun bay u dagaalameen oo farda wato oo saasi u dagaalamaya ayuun bay iyaguna ahaayeen saynu xagga dambe ka arki doono markaan eegno nusuusta ku soo aroortay ibnu Cabbaas waxa uu tilmaamayaa weeriyada nin muslimiinta ka mid ah maalinta tan nin mushrikiinta ka mid ah ku daba jiro ayuu hortiisa wuxuu ka maqlay sawt yani jeedal faras korkiisa jeedal laga dhufanayo oo uu qaylinayo ninka jeedal ku dhufanayo iqdam hayzum leeyahay hayzumna waa faraska magaciisi dabeetana hortiisa uu eegay markuu faraskii iyo codkii maqlayba hortiisa eegay mise ninkii mushrikee weeriyanayayba waa dhulku yaala oo halkaasanka korkiisa seef lagaga dhufto lagaga jaray oo wajiga darabaad ba kaga dhacay oo midabkiisiiba uu isbedelay markaasuu nabiga u sheegay buu yiri calayhi salaatu wasalaam ansaarigii baa soo noqday wuxuu yiri ilaahi rasuulkiisiyo waxa igu dhacay maalintan dhawey waxaan ku mid aan eriyay markuno kambashiisa la qaaday oo hortay dhulka jiifa markaasuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam sadaqta dhalika madadun min as-samaa'i thalitha runbaad sheegtay buu nabigu yiri waa ciidankii samada saddexaad ka yimi buu ahaa buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ka takhalusay waxa malaa'ikta dagaalkeeda ka dareemaysaa nin ansaarta ka mid ah ayaa Cabbaas ibn Abd al-Muttalib ayuu soo maxbuusnimo u keensaday dabeetana Cabbaas baa wuxuu yiri Cabbaas safka gaaladu marka ku soo jiray inkastoo riwaayadku ay tilmaamayaan wuxuu ka mid ahaa muslimiintii la soo karayay meesha qasabka dagaalka lagu soo raaciyay oo islaam buu ahaa ileeyin laakiin islaamnimada cid kama aqbalina waxa la yiri isfuro oo maxaabistu ka mid ahaa laakiin waxa jiray sidaba niman uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam nimankaasi hadda qabataan oo dadkii islaamka u gargaari jiray waqtigii Makka la joogay yaa la laynina maxbuusnimaha lagu soo qabto kuwaas ku jiray Cabbaas wuxuu leeyahay ilaahi rasuulkiisa inna hada wallahi ma sarrani buli Cabbaas baa dhaaranaya xadiis musnad imaam Ahmad ku sugan oo Ahmad Shaakir uu sanadkiisa saxiixinaya wuxuu ilaahi rasuulkiisa wallahi kani wata inaanu soo xidhanin ninkani wada ima soo xidhin buu ilaahi rasuulkiisa laqad sarrani rajulun ajlah min ahsani an-nas wajhan ala faras ablaq ma arahu fi al-qawm nimba soo xidhay buu leeyay ajlaha ay hasara sha'ru an janib nin salxan ya dhaadheer ayaa soo qabsaday buu qurux badan oo faras wata oo aanan ciidankaba kuma dhaxarka buu leeyay ninkii soo qabtay ansaarigii baa yidhi ana asartu ya rasuulallah ana soo xidhay ilaahi rasuulkiisa deetana nabigu wuxuu ku yiri uskut waraamu buu ku yiri faqayada ayadaka allah ta'ala bi malakin kareem aamu buu ku yiri ilaahi baa kuugu gargaaray malage waxba kaliya ma xidhanina malag ba kula socdo ilaahi kuugu gargaaro wax ku xidhay aamu buu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam مغازي الأمة وبإسناد حسن وحكسا أروري نبي عليه الصلاة والسلام خفقة سيدي وحي يرمي يرضى والله قالوا يرى نغضي إن ير مركو عريش يخوشري دبتنا إن داعي تسوك على قاضي بيقول أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل متعجل بعمامة آخذ بعنان فرسي يقود على ثنايا نقع أتاك نصر الله يعني سوى النبي هو بشارين يا أبو بكر بو حكولي بشاري أبو بكر وإلهي نصر يسوي كويمي وكان جبريل عمامة حدن أو فرس كيس يعني فنقلك ومحل إذا هذا كان فرس كعنان الفرس تونكا فرس كتونكا هيا يعني عيدا وطو جبريل باص وقال ابن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري نواك كسو جنبا إنه نبي يري عليه الصلاة والسلام جبريل باي ما وحو يري ما تعدون أهل بدر فيكم خير بدر محا إنكو أترسان
يعني غير بدر سيدا وملاين سامبو النبي جبريل ويدي تبتنا وحنا بقول أفضل المسلمين أو كلمة نحوها يعني هو مسلمين تقوى وفضل بدل ما قوى وفي عنه كلا وارد أبو كويري جبريل بامرك وحقوق جوابي وكذلك من شهد بدرا من الملائكة غير بدر ملائكتي أهيدنا واسيدو كلا وملائكة تقوى وفضل بدن يجونا ملائكتي بدر كقيب قش لأن على كل حال وحين وجدنا هنا آثار بدن الصحيحة كصارة القرآن يا حديث بله ملائكين بدر كقيب قشي لكن هذا وحين لنا ابتلاء يا إلهي مريني وملك قرب بين وحن هلاقو ولا ودي كريه ابتلاء بل مريني لا امتحان صفقا المسلمين تا ودقال رسمية وأنا وحبا ولا هارين أي قالين نمك مشركين تانا إلهي بقى عن تودا مكانسيي وحلوت الماما تدباتني أنا ولا قبضتي تدبات إنما لها ولا قدلي باقي هارين وياعين فردت أي عررين ولبان مدنا متكلا صعنين عور الله يعقو نول بهالكي عجيش وقارسيانو ومركاسي استعمالية ماشي وقاري كرو نبي عليه الصلاة والسلام مركاسي بدر مركو نمكي جبيي صدح مع الموضة يسيجو غيو فرديي هالكاس بوكو آسي شهادة دي مسلمين تا وهي مسادر قرآن أفر يطبن ابن حجر كستو لبقى لكود داري إصابة مركو ترين أيو أفر يطبن كاسيو الله يرادو لحكم مدينة وحي هاي المهاجرين سيدة كلنا أنصار بهين سيدة دنا لحنا قلا هيد لبنا قلا أو سي خزرج أفريقيا طبعا كاسك الشهيد وبيبا الله يرضى سيدة سنة قصة أرورتينا هي ضان لنا مايدين وحكى لنا القصمين لنا كان في المريه هدي ستان يسيو دي لقوا حوالي وأنا الشهيد كسيد الله يعني هو مبهنا صلاة دي وحبطونا سيسا الله عاصية مالنتي صدحات مركا يا هيد صدح شميشي فرديي أيوة أفر إيا لباتن كميدا مدحيوينتي قريشيد بابختيودي لسو أروري أفر إيا لباتن أبو جهل يوم يدي وعوا وين أفر إيا لباتن سناديد قريش ماشان قوبتن تضباتن إن لقد له تضباتن لقى حبسيه قرا ما هي وحن لا يه وحن لا حبسيه وادو قيدي يعني غير كعيد لك قيمتين مدمر أبو سفيان يد قرادي أورته ودب حصتون موياني قريش يمدمر سور راع ويا أبو لهب وكو هراي مكايو سنا ماشي سامي نفتك كبحدا وكل انتهي مدار عين كاسية مويانة وضيّد وضيّنتي وقبض نايد هل كان بالله دقة دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام تسوي الريو عيل قافة وبدر كويا لبو يقول كوجرا بختي قودي عيل كاسال كوجرا يضل كوجرا يبي انتو سدول تاجي أيو النبي الله هذا وحكوا لي يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله بختي قودي والله هذا وحكوا لي ما أنت ما يدين فرح قالين لهيدين إن إلهي رسولك ساق بشان فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وأروحي والله يبلغ قاضي عن قوان هلايه والنصر يقول هيدا إذن كوحي الله يدين بلغ قاضي قول درية عذابها ما هشام النبي قولي عليه الصلاة والسلام عمر بامر كوحولي إلهي الرسول كيسيه ودقل ففضل لحظة يساير روح ملهم كميكم مقليا مركز النبي يقول انتو دارتو حولي والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمعوا لما أقول منه إيجا مدقا نقولدين ما أنت وحان دين الله هاي سيدي بياني مقليا وكان صحابك قتاد لها إلهي بأسون وليه سي توبيخة عن أنت يدي قشد النبي قسيه ومقلان إلهي بمقشيه بوليه ومقليه يعني النبي يقول حقود دارتي سيدا إيه مقليسان سيلك ببختي قود إلهي مقشيه ودي قشد إيدايه وحان قوله الله way wada maqlayaan buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam ma oranin nabigu kaleey salaatu wasalaam marka kan ciidankii quraysh maxaa la yiraahdaa awrtii iyo abu sufyaan iyo intii baxsatay inaga dabageeyo ma oran way ilaahay wuxuu marka horeba u ballan qaaday maxay ihda taifatayn labada kooxood inuu koox helayo kooxdu helayna kuwan bay noqdeen nabigu kaleey salaatu wasalaam dagaalku markuu socday mushrikiinta qaar kamid ah ayuu yiriyaan la dilin koox reer banu abdul muttalib oo tilmaamay oo kamid yahay al-abbas ibn abdul muttalib wuxuu kaloo tilmaamay abul bakhtari ibn hasham ninkii la oran jiray isagana kooxdani waxa la yiraahdaa waa kooxdii islaamka u gargaari jirtay iyagoo gaala ah markay joogeen makaba waataynu soo marnay baad abbas oo xataa nabiga hubinaya in ansaarka hubinayo islaamtay inay madiina tagistiisa ay ilaalinayaan oo lahaa warimka weelkii buu la joogaa ka kaxaynina hadaydan hadhow difaacaynin idan isagoo mushrika xataa buu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkii u heelinayay
وأنا ده هرو صار شجني ده reer banu lmuطalib ama reer bani haashim oo dhammeynay shacab abu taalib ba nebiga iyo intii muslimiinta ahayd la galeen oo lagu wada go'doomiyey abulbakhtari ninkan la yidhaahdana waa nimankii gubay saxiifadii waa nimankii buriyey baan u jeedaa saxiifadii heshiiskii go'doomiska nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacda waataynu nidhi waa la go'doomiyey 3 sannadood bay go'doon ku jireen oo aan waxna laga iibinayn waxna laga iibsanaynin muqaataca rasmiya lagu waday go'doominta nimankii buriyey ninkan baa madaxa oo ka mid ahaa shatinina go'aanka isku raacay hore ayuu ahaa ninka kan markaa wuxuu nebigu yidhi haddaa qabataan isagana yaan la dilin bal bakhtari ninka la yidhaha ninkii qabtow yaan la dilin ha la qabtow laakiin alcabaas ibnu cabdilmutalib waa la soo qabtay uun balbakhtari isaga waa la dilo lama qabanin sababtuna waxay culamada taariikh waxay sheegaan isaga iyo mid kale oo wada socdo qabtay saxaabiye dabeetana wuxuu yidhi istaaga nebigu wuxuu igu yidhi adiga hadilin baa laygu yidhi istaaga markaasuu yidhi iyo saaxiibkay labadaydaba na wada magan geli ka kale cidiima amrin buu yidhi isaga madaxan ka jaraya dabeetana wuxuu yidhi haddaa nin weyn waa yeelaan hedee saaxiibkayna hala dilaana ma yeelayo waa dagaalamaynaa way dagaalameen dabeetana labadoodii baa la wada dilay yani isagaa diiday in la qabto yidhi waa dagaalamaya saas buu ku dhintay mushrikiintii saas bay ku jabeen dabeetana wixii ay haysteen oo dhanna xoolo ahaana waa laga furtay waana soo baxsadeen baaqigoodii magaaladii maka ahaydna warkii baa gaadhay warkaasi maka waa si hayru caadiya bay u dawaqeen way rumaysan kari waayeen inkastoo aan sanad saxiix aan lagu soo arorin baan rajaynayaa ibnu isxaaq wuxuu soo aroriyay haddaynu lilmacluuma isaga sheegno waxaa la yidhahdaa nin ka mida baa ugu soo horreeyey magaalada firdhadkii soo galay ah markaasaa lagu soo ururay warran baa la yidhi warkii wuxuu ka bilaabun dee hebel dhimay hebel la dhimay odayadii unbuu kii la weydiiyey ba yidhaahdaa dhimay waxaa la yidhahdaa safwaan ibnu umayata ibnulkhalf kanaynu sheegaynay oo safwaan oo meesha fadhiyo isna odayada qorasheed ka mid oo meel fadhiya wuxuu yidhi war nin waalan baa la hadlaysaane bal waxaad tidhahdaan safwaanna ka warrama marka wuxuu rabaa inuu yidhaha ninkana waraysanaysaan waa waalaya waxba kala garan maayo xataa aniga bay garan maayo bal safwaan ba weydiiye safwaan ka warran baa la yidhi waa ka halkan fadhiyo buu yidhi wallahi aabbaha iyo walaalkaabaadna waa la dilay وإلا والله ما دي هالك وصوف علي أنا بختي قدر ده أباها يا ولا الكانا كل اللي بكم ده هاي مركا وي قادن كري ويد قريش سيدان لو قال يا ما سيدان وحد انتين ورلا الرميسان كري ويابو النقضي إلا حد ورر بدن وكلا لقى سيت الماما حاجة لما مركا لا أنا محابستي يوحي للسوق وقفطي يوردن إن نبي عليه الصلاة والسلام محابستي ويدي محنك يا لابو يوري horta dhexda markii la soo socday laba nin ayuu nabigu amray in la dilo labada iyaga waa la dilay nadar ibn al-harith ninkii la oran jiray iyo uqba ibn abi mu'ayt ninkii la oran jiray labada waa la dilay dhexda lagu dilay iyaga waxa loo dilayna mujrimiyo xarbi bay haayeen yani istilaaha casriga xadiidka ciidanku markuu isdhiibo qola jirtay iyaga maxkamad la saaro la yiraahdo waa mujrimiyo xarbi oo la yiraahdo waa dambiga dagaal nimankii galay askarta lama laayo laakiin niman madaxda ama dawladda madaxdeeda ama waxba la yiraahdo waa mujrimiyo xarb iyo maxkamada la saaro la laaya nimankani mujrimiyo xarb bay yahay uqba ibn abi mu'ayt isagu waa ninka garanaysan intuu soo qaado uur ku jirta xoolaha nabiga madaxa ka saarayay aynu soo marayna Faatima ka rogaysay ama waxa geysanayay kaas nadar ibn harithna isna nimanka rabshada badan loo kamid ahaa وانا حافليان انه yahay kii oran jiray quraanka maxamed mid la mid ah idin akhrinay intuu meelaha sheeka xariirta akhriyo adu dadkii sidooda u dhibta badnaa ee laga fadhiyay waayay bay haayeen marka iyagu sidooda ay mujrimiin u ahaayeen labada dhexda markii la soconayay iyaga sabran baa loo dilay waa madaxa ka gooyaa la yiri maxaabistii kale la keenay nabigu wuxuu yiri sidaan u galaa Umar bin Khattab wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiyo intii in waynu dilay intan kalena waa aymatul kufri wa sanadidiha galada madaxii waaweynteeda intii ka hadhayna waa intan uunaynu gacanta ku hayno iyana yaan xabadi ka baxsanin buu leeyahay haddaynu rabno gaal maanta inaynu iska reebno meel aan kala marro 70 kan ka dabageeyo qoliya 40 ka quraash kamid ah haday dhaafaan buu leeyahay waxay waan bay leedahay xabadna yaan ka sii deynin buu Umar istaagay Abi Bakar buu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam Abi Bakar oo ka waran Abi Bakar baa wuxuu ilaahay rasuulkiisiyo qoladatan aan fidya ka qaadno madax furasho aan ka qaadno
oo dadka muslimiinta ee halka jooga waa baahan yihiin waa ka inaynu madax furasho una ka qaadno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeshay ra'yiga Abi Bakar labada ra'yi wuxuu qaatay kii Abi Bakar laakiin quraan baa soo degay ayidaya ra'yiga Umar وإلى إليه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلى قوله لقسوقار فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا قرآن لعنانا أيه وإلى إليه أمي عنتمين النبينا إنه محابيس هيسته isagoo aan isqaan samaynin isagoo aan gaalada yaani jab fiican ku dhigin in maxaabiista laga hayo ma yahayn ina nimanka halka Umar marisaan bay ahay badhidan kamida xooladoona waliba la yiri ilaahayna akhru buraadaynaya dabeetana ilaahay wuxuu leeyahay hadaan kitaab Allah hore u mari lahayn cadaab baabay idinku haleelina waxa kan laakiin akhiran ilaahay wuxuu leeyahay fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba waa loo xalaalay wixii waniima ka qaateen waa lagu canaantay waa si loo xalaalay sideedabana waa khiyaarkii koowaad laakiin waagii dambe nusuusta quraanka soo degtay waxay culimadu leeyihiin imaamka ayaa ilaahay khiyaar u siiyay fa imma mannan ba'du wa imma fidaa in la dili karo in la siidayn karo in wax lagu furan karo intaba ma cada al-atfal wa an-nisaa iyaga in la dilaa marnaba ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada daadeen dagaalna ku jirina marayna keenaynin iyo dadka in la laayo iyaga marnaba fi shariica قال المسلم وحدوني هذا إلا دي لما بنانا لكن kuwa kale imaamka muslimka ama dawladda muslimka cid ka talinaysa sidee ay aragtay weeyaan asraa kana ma maxaabista tan xoolihii lagu furtay way kala gadisnaayeen sida macruufka الهيثمي مجمع الزوائد وكسر أرورين يروه الطبراني ورجاله الثقات وليه وحلق قاضي أفر كن درهم قفكي أنت هايسته dadka badhna way sii daayeen oo مثلا Zaynab ayaa timi oo ina nabi Maxamed odaygeedii Abul Aas ibn Rabi' ayaa ku jira dadka maxaabista loo qabtay dabeetana Zaynab baa timi oo qilaada ama maxaa la yiraahdaa faashan luqunta lagu xidho taa luqunta lagu xidho uu nabigu siiyay calayhi salaatu wasalaam wadata oo u bixinaysa fidaa inay odaygeeda ku furato dabeetana saxaabadii way ka xishoodeen baashi yareeday uu nabigu dhibaata u siiyay inay dib uga qaataan oo way isaga sii daayeen asiirkeedii maxbuuskeedii way u sii daayeen oo may ka qaadanin qilaadadeediina way u daayeen asiirkiina way u sii daayeen kuwa yowga laga waayay xoolo reer Maka maadaama magaalo baa mushtariya caynkan ahayd waxay u badnaayeen dad badan oo wax qoraya lahaayeen waxa la faray iyaga inay inkastoo musnad imaam Ahmed bi isnaadin fihi Ali ibn Asim nin la yiraahdo saduuq yukhti ah oo ku jiro waxa la faray iyaga in ay wax barasho sameeyaan yani hanti kuwii waayay waxa la yiri wax dhiga toban meelahaas baa la yiraahdaa dadkii ansaarta kamida qofkii wax bare ee wax loo qoriyo wax loo akhriyo waxa bara in la sii deynayo halkii kuwa kale 40 dirham laga qaadayay in iyaga badiilku yahay tacliim dadka inay wax baraan dabeetana maxaabistooda loo sii daayo وانا مالته النبي عليه الصلاه والسلام لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لا طلقتهم له يعني isagoo nabigu abaal marka tilmaamaya wuxuu lahaa haduu noolaan lahaa maanta Mut'am ibn Adi waa ninkan lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu jaarnimo siinaya ma dadkii islaamka u gargaaray isagoo mushrika kaasi haduu noolaan lahaa buu nabigu yiri oo bakhtiga kan igala hadli lahaa buu nabigu yiri waan wada siin lahaa يعني تضباطا كان محبوس بهدو مطعم ابن عدي من الله مانت وأسيدين لها ابو النبي عليه الصلاة والسلام وحي وريان علماء التاريخ فتح الباري سناد حسن ومن كتاب الأوائل لأبي النعيم وكسر رورينيو ابن حجر سيدو الشاقي وحي جعل استريني وسيد دايان لما وحي فلي طبري ينوي بسناد حسن كسر رورينيو وحي جعل استرين صحابة ينوي وسيد دايان عباس daawada haddii aad ku cusub tahay kanaalka Daarul Khayr fadlan subscribe garayso si aad u noqoto qofka ugu horeeya muuqaalku soo gaaro kana faa'iideysta siina share gare like comment